بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelan doono maxamed mukhtaar saalax oo la dhashay marxuum axmed dowlo oo sanad ka hor lagu dilay magaalada muqdisho haddaba waxaan wax ka weydiin doonaa kiiskii maanta ee maxkamadda ay ku xukuntay dadkii ka dambeeyey dilka marxuum axmed dowlo oo maxkamadda gobolka banaadir saddex ka mid ah dil toogasho ay ku xukuntay arrimahaasi arrimo kale ayaan wax badan ka weydiin doonaa maxamed mukhtaar saalax maxamed soo dhawow marka hore kusoo dhawow stuudiyaha Somali Cable marka xigta sidee buu u dhacay kiiska ay maxkamadda qaaday la xiriirta marxuum dowlo bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan rabaa inaan halkan kaga hadlo waxyaabihii maanta aan kala soo kulmay maxkamadda gobolka banaadir haddii aan si faahfaahsan aan kaga bixiyo xeer ilaalinta maanta wax eed ay leedahay ama xumaan ma jirin sidii ay wax yihiin ay wax u sheegtay diintana waafaqsan laakiin dad ayaa qaabka diinta ka dheeraaday oo xukun cadil ahayn aan riday taasi oo ku muujinaysa rasuulka hore uu dhahay haddii Soomaaliya oo dhan hal qof ay disho dadkaas dil waaye qofkii niyadda ka taageera xataa in oo asigana ka mid yahay dambigaas dad qirsanaay inay meesha dagaalka ka qayb galeen ayay maxkamadda amartay in la sii daayo taasi oo aan u arkayo cadaalad daro marka xigtana waxaa kaloo meesha dhacday markii saddex qof waa uu maqan yahay asoo loo jeedo magaalada dhex maraya hadda muddo 8 bilood ah ayaa la joogaa wax soo qabanaya ay jirin amaantan Allah qofkaas dil aan ku xukunnay labadan qof kale dil aan ku xukunnay saddexdaas qof dil ayaan ku xukunnay taasi waxaan u arkaa mid mala awaalin anaga nagu mala awaalinayo oo hadallo hoose oo ayaga SDN oo jiraan ciddaan waa daalinayna si ay diya u qaataan kuwaan kalena racfaan kale sida hadda hooyadii dhibkaan ka dambeysay hal sano loogu xukumay taas ma cadaalad baa ummadda Soomaaliyeed ee culimada diinka ayaan doonayaa inay ka soo hadlaan arintaas midda ugu horeyso maxaa dhacay qofkii awaawulay dhibaatada intaan la eg ka dambeeyay ayaa hal sano lagu xukumay maantana waxaa dhacday in la dhaay racfaan ayaa la siiyey dacwadda markay soo dhamaatay ayada holka kale yarka walaalka ee hadda ilmo socdo iyo aniga irag kale meesha taagan oo sugeyn inaan holka galno ayaa askari noo soo awood sheegtay bastoolad nagu soo bixiyay banaanka war waxaan dhaan anaga dacwada meeshaan ku leenahay inta soo galna laga dhahay intaan u taagana intaas noo dulqaado waxaas adinka leedin dhahaa awood in banaankana lagu soo bixiyay oo nala dhahay baxa banaanka warniyo adiga ma mas'uuliyadda qaadaysaan dhahay anaga meeshaan dacwadaan leenahay qofka dacwada u fadhiyo dadka dhibanahay anaga waay war waxaas idinkaan ila dhahaa banaankaana loo soo bixiyay gudahaana laga soo baxay haddii aadan soo naqanaynin habartan waa la daynaa oo aan jawaabta gudaha ka soo baxda haddana waxaan isku daynaa inaan meesha ku naqano isla askarigii oo albaabka fadhiyo aan celiyo oo wuxuu nagu jawaabay shalay markii leedin gubaayay wax waa iska celin weydeen naqda meesha aniga xukumo waxa galaysiina male taas waxaan u arkaa cadaalad darada ugu weyn ee inta maxkamadda aan tagay maanta aan kala kulmay inay ka mid tahay waa gartay maxamed mukhtaar marka dabcan maxkamaddu maanta waxay xukun ku riday ilaa 3 qofood oo lagu eedeeyay inay dambiga ay qayb ka ahaayeen idinkuna maxkamadda go'aankeeda waa dhaliilsantihiin sidee wax u rabteen annaga waxaan ogolnahay wixii diinta islaamka ay qabto horta meeshaan wareysi badan iyo cadeymo badan iyo waxyaabo badan ka dhacay maxkamadda horteeda sida xeer ilaaliyaha xitaa afkiisa uu ka qiray ninkii markaas arkayay ama fadhiyay ayaa sheegi kara xeer ilaaliyaha kelmadaha uu ku hadlay waxa uu sheegay waa wax diinta ay waafaqsan tahay oo saxda ah xeer ilaaliyaha hadalkiisa laakiin se taasi ma dhicin dibin daabi kale oo meesha taale ayaa dhacday waa gartay marka arrintan aad sheegayso ee racfaanka laga qaatay ma dadkii 3 qofood oo maanta xukunka lagu riday ayaa racfaan qaatay mise gabadhii hooyadeed oo aad sheegtay in horey hal sano loogu xukumay racfaanka qaatay hooyada hal sano loogu xukumay sida ayaga ay sheegayaan sharciga waxay dhaheen qofka markii noocaas uu sameeyo 7 sano ayaa ugu koreyso hal sano ayaa ugu hooseyso marka ayadoo meesha ugu hooseyso loo qabtay racfaanka sababta lagu siiyay ilaa hadda ma garanayna anaga taasi anagana waxna laga weydiinin haddana gudihii maxkamadda anigoon ku jirin oo banaanka xoogna lagu soo bixiyay taas ma garan karo marka sababteeda waa gartay kiiskan dabcan muddo bilooyin soo jiitamayay ilaa xilligan soo gaaray maxaa is leedahay sababta xilligan soo gaarsiisay in xilligan xukunka uu dhaco oo maxkamadiin la qaado waxaa taasi sabab u ahay ayada oo la diidan yahay waxyaabaha ay diinta qabto ma hal qof ayaa 7 qof loo dilaa lagu dhahay aloon marka anaga 10 qof markaan wax ku dilna aniga lama dilaayo taasoo kale ayaan u arkay aniga waxay dhiirigelinaysaa dadka falka sameeyay laakiin 7 qofood ma dileen 7 qofood ka muuqdaan inay dileen hal anigu yar shaki ku jiray laakiin inta kale dadkii gacanta u geystay aayeen waa gartay ma ku jireen marka 7 qofood dadka maanta maxkamadda la soo taagay ma joogeen
hal qofaa ka maqnaay Hay. ha ninka shidaalka ku shubayaa ka maqnaay Waa gartay. oo dil lagu xukumay oo isagana dil waa laakiin waa maqan yahay ha oo maxkamadda ma joogin ha waa gartay ha marka mana sugayna in lasoo qaban doono maxaa dhaca hore yaa loo soo qaban waayo asoo magaalada dhinaca ka joogo waa gartay maadaama hadda sidaad ii sheegayso aad xukunkii dhacay aad kasoo horjeedaan oo maaragtay cadaalad dar aad tirsanaysaan ma kala hadasheen dacwadiina ma u gudbiseen maxkamadda gobolka in aad arrintan ku qanacsaneen meeshaan haddii aad dacwad gudbisid iyo haddii kale cid tixgelin meesha ku hayso ma jiro meesha waa meel haddii adiga aadan lacag haysanin qof dan yar aad tahay lagugu tumanayo waa gartay dabcan maxamed mukhtaar saalax allah u naxariisto walaalka marxuum axmed dowlo kiiskiis wuxuu ka soo bilowday gabadh iyo wiil iscalmaday oo isla baxsaday dabcan waxaa noogu wardambeysay gabadhii wiilka inay isguursadeen oo meel ay wada degnaayeen arrintooda xaggee ku dambeysay guurkooda arrintaasi dowladda gacanteeda ayay ku jiraan ayaga in wax laga weydiiya ayaga ayaa mudan anaga mar hore ayaa taas naga xil wareegtay waa gartay iyagu kiiskan wax ay kuligu leeyihiin ma laha hadda ay ka qayb qaadanayaan maya waa gartay waaya maxamed waxaan rabaa kaloo inaan ku weydiiyo dabcan marxuum axmed dowlo ilaahay u naxariiste wuxuu lahaa carruur fara badan meel geerishna uu ka shaqaysan jiray ka waran xaalad ay ku sug yihiin carruurtiisii hadda mid hadda aan sheegi karna ma ahan maxaa dhacay maamulkii gobolka banaadir ayaa marka hore sheegay inuu kafaalaqaad uu sameynayo maalinkaasaan ugu dambeysay anaga guddoomiye yariiso aan aragno marka waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed ilmahaasi inay u baahan yihiin gargaar bini aadannimo kaasoo ka mid yahay waxbarashada wax waliba oo tafsiilaad ay carruurtaas u baahan yihiin sida waxbarashada adeegyada kale wax waliba waa u baahan yihiin maanta tiradooda mise 16 carruur ah iyo aabbo oo indhoole waa gartay aabbana waa indhoole marka horey waxaa jirtay in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sida maamul gobolka banaadir guddoomiyaha sidaad sheegtayba u ballan qaaday amaba u kafaala qaaday carruurtaasi noloshooda ilaa xilligan oo kiiska axmed dowlo uu socdo wax idin yimid oo maaragtay carruurtaasi noloshooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda kafaala qaaday ma jirtaa maya wax dowladda ka socda noo imaad ma jiro yariisow maalinkaasaan ugu dambeysay maalinkiina hataa aniga waxaan dhahay yariisow maanta waa imaaday laakiin maalinkii kugu horeysa kugu dambeysay yeesan naqin iguma sawir sida aniga aan sheegayna u dhamaatay maalinkii udin imaado u sheegtay ha hay ilaa hadda aragti iska dhaafee wicitaan hataa ma jiro waa gartay ha marka yaa hadda carruurtii marka gacanta ku haya oo wixii ilaahay qadaro meeshaas looga helo aa la siiyaa maalin ha qadaano maalin ha quutaano taas ayay ku sugan yihiin aad baad umahadsan tahay asalaamu calaykum